wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah saaka subaxnimadii u soo afjaray khilaafiin muddo ka dhaxeeyay dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale shirkadda Dayib ee gacanta ku haysa kawaanka xoolaha ee magaalada Burco oo ay ka soo horjeesteen dadka hiliblayda ah oo maalmihii u dambeeyay xoolaha ku qalay banaanada ugu horeyn qodobada heshiisyadaasi ayaa waxa akhriyay xildhibaan Bidhi waxaana ka mid ah qodobadaasi runtii taariikhiga heshiisyo geesoodo ayaa halkan lagu galay cid waliba waxay lahayd baalkan loogu wixii qaldanaa qaladkii jiray ee walba ayuun baan la saxay tanaasul baan sameeyay anagoo runtii maayirku tanaasulka sameeyay badan oo wasiirka laftiisu danta guud bay hagtay qodobkooda in meeshu ay tahay hanti dawladeed waxaana mas'uul ka ah dawladda hoose Burco oo qodobkooda qodobka labaad maamulka kawaanka waxa iska leh waa cid maamulaysa waxa maamulaya kawaanka oo maamulkeeda leh shirkadda Dayib waxa dawladda hoose ee Burco ay kaga kiraysa $1,300 bil walba shan dawladda hoose inay soo xarayso xoolaha lagu qalayo ee banaanka lix in dawladda hoose ay qaado xashiishka aan diyaar ahayn waa ka qalan toddoba in wixii dayactira ay geliyaan shirkadda la isla ogaado waxa ay hadii ay shirkaddu ka soo bixi weydo heshiiska kor ku xusan waxay noqonaysaa in heshiiskani uu buray hadii dawladda hoose waajibkii lagu lahaa ka soo bixi weydo waxa loo noqonayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer muddada laga kireeyay heshiiska ee dawladda hoose ka kireysay waa 20 sano qodobka labaad tulaad amniga meesha waxa ka mas'uul dawladda hoose Burco sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur Suldaan Siciid oo ku hadlay afka shirkadda Dayib maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer waxayna si wada jir ah u soo dhaweeyeen heshiiskaasi waxaana uu dhignaa hadalkoodii sida tan maanta wixii dawladda hoose halka ku qoran imika xildhibaanku ka hadlayay ee annaga gaar ahaan noo khuseeyo hadaanu maamulkii dawladda hoose nahay waxaanu si toos ah u ballan qaadaynaa inaanu dhinacayaga fulinayno aanay naga dhamaanayso waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo cid waliba ay ilaaliso haday tahay shirkadda Dayib haday tahay golaha deegaanka haday tahay xanaanada xoolaha cid waliba inay ilaaliso qodobadaas oo qodobada la ilaaliyo maanta waa go'aan farxad leh oo u soo hoyday magaalada Burco wasiiradu waxa uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalkeedii iyo ajarkeedaba ha ku siiyo dad madaxa iskula jiro madaxa la isu geliyo isku qoosmay waxay kala yihiin la garan waayay baan ahay oo anagu aan xaqlayaal ahayn rag kale oo xaqlayaal marka lagu soo sheegay madaxa la isku geliyo maanta hadii anagu aan xaqla noqonay ragii kale shirkaduna ay noqotay rag shirkadooda xaqla ka ah oo aan saaka waxba iska ka khaldaneen waxna aan ku heshiinay 12 qodob aan ku heshiinay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala hadii baahato magaalooyinka kawaan kale la sameeyo ballaarinta beenma waliba maanta kawaan kaliya maanta aan u baahnayn kawaan kaliya way u baahantay qaar kale maanta u baahantay qaar kale la sameeyo hadii ay suurtagal noqoto in qaar kale la sameeyo wala sameyn karay maaha kaasuun ba koota ugu xidhnaanayay shirkadda arrinta waxa aanu dardar gelinay oo maaragtay in dhaqso looga hawl galo aanu u dardar gelinay annagoo ku xisaabtamayna waqtiga roobka inaanay jiri doonin xoolo dambe oo banaanka lagu qalo qodobada heshiiska oo ay saddex geesood maaragtay u saxeexeen wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda hoose iyo shirkadda Dayib laga bilaabo maanta ayuu dhaqan galayaa anigu runtii halkan waxaan jecelahay inaan uga mahadnaqo dadkii hawshan ka soo shaqeeyay oo kow ay ugu mudan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xildhibaanada iyo maaragtay meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka dawladda hoose oo iyaga laftooda arrintan mudlig u ah ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Marwo Yurub Abiib ayaa halkaasi ka hadashay waxaana uu dhignaa hadalkeedii sida tan ayaa waxaanu gobolkana wax weeyaan roob baa imika soo socday ninkan arkay caafimaad darro ayaa ka dhacaysa gobolka caafimaad darro haday dhacdana wax weeyaan xukuumadii baa dadkii ka mas'uulay Ilaahay baa inaga wada mas'uulay marka inaan Burcada meel walba habaribo waliba neefkeeda aanay ku qalan aba koona walba aanu islaga soo daadin waa koowaadeen ahmiyada saarinay 7 habeen u dib jirnay si aan xanuun ugu soo noqonin gobolka Togdheer Burco sideedaba sanitationkii caafimaadku waxay ku wanaagsan yihiin goobaha loogu talagalay in maxaa la yiraahdaa lagu fuliyo Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable gudaha magaalada Burco.